السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلن وعنا wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee idin kaaga diyaarinay dagaalka ka soconaya dalka Ukraine halka aad naga daawanaysaan waa janalka xogta dhacdooyinka dagaalkan waa mid aad u qaraar isla markaana uu Ruushku 24kii bishii February uu ku soo qaaday dalka Ukraine ayaa aad uga soconaya magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi haddaba madaxweynaha Ruushku ma joojin doonaa dagaalkan ee uu ku soo qaaday dalka Ukraine حتى دجالك وجوهن ورمادا مررك قار سيد كوني سجال بقرشان يا فرتنكي نتيجة كلية وإن لجلوه دجال لبضر لنا متكل بابو بل سأنت بدن دجال لضو وحي مركز يكو إدلادان قاب أي سن عدول بكوقن عن إنكستو ويران ديجي دادن يوجوك سنيو مررك قارنا حتى هدي أي سيدا وجوهن كل رمادان دجال لذا لبضر لنا بوحي سي ترتيبه ديب وجوب باللابان حرير كودي هره أو أي عداود أكو يريدا haddii aan nasiib leenahay waxa aan mar dhow arki doonaa in arintan ay ka dhex bilaabato Ruushka iyo Ukraine muddo gaar ahaan dhanka Ukraine way sii jiri doontaa muddo 10 sano ah balse labada dhinac waxa ay doonayaan una baahan yihiin nabad Ukraine sababta ay u rabto nabadda waa in magaalooyinkeeda ay ku socdaan duqeymo xoogan Ruushkana sababta uu rabo waa in sida uu sheegay madaxweynaha Ukraine ay haddaba uga dhinteen ciidamo ka badan kuwii uga dhintay labadii dagaal ee argagaxa lahaa ee uu ku galay Chechnya inkastoo aysan macquul ahayn in la xaqaajiyo arintaasi balse ma jirto cid ogol in ay heshiis nabadeed saxiixdo haddii uu horseedayo jabkooda madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxa uu raadinayo waa in uu wajiga hagaajisto madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky isagana waxa uu horeyba u cadeeyay in uu leeyahay xirfado heer sare ah oo dhanka diblomaasiyadda ah waxa uu damacsan yahay inuu u sameeyo wax kasta oo macquul ah si uu ciidamada Ruushka uga dulqaado wadankiisa ujeedada kaliya ee uu Zelensky leeyahay waa in uu xaqiijiyo in Ukraine ay dagaalkan ka gudubto iyadoo midaysan oo aan ahayn gobol ka tirsan Ruushka taasoo ah midda uu markii horeba Putin u muuqday in uu ka dhigi karo Ukraine madaxweyne Vladimir Putin waxa kaliya ee hadda uu danaynayo waa in uu ku dhawaaqo guul danka malahan hadii dhammaan dadka ku jira maamulkiisa ay u arkaan in Ruushka ay faraha uga gubteen dagaalkan danka malahan hadii ay 20% ama wax lamid ah ay shacabka Ruushka ee fahansan waxa ka socda adduunka ay ogaanayaan in Putin uu sameeyay khamaar ku raadinayay waxa markaasi uu isagu shakhsi ahaan u rabo kadibna uu ku guul dareysay dadaalkiisu wuxuu xooga ku saari doonaa inuu helo taageerada qaybta kale ee shacabka intiisa badan kuwaasoo la dhacsan waxa looga sheegayo wararka telefishinada dawladda inkastoo mararka qaar ay shaashadaha telefishinadaasi laftooda ka soo boodaan waxyaabo ka shifaya xaqiiqada dhabta ah sida geesinimadii aan caadiga ahayn ee ay sameysay tifatiraha hal telefishin oo lagu magacaabo Marin Ovsyannikov taasoo xilli uu warku socday soo dhaxgashay dadkana u sheegtay in wax la sheegayo ay been abuur yihiin marka waxa madaxweyne Putin u suuragali karaa in uu dagaalkan ka soo baxo isagoo waji fiican la hortagi kara aqlabiyada shacabka Ruushka ugu horeyn waa inuu helo damaanad qaad oo laga yaabo in uu yahay in Ukraine ay dartiisa markaasi ku qorto in aysan doonaynin ku biiritaanka NATO mustaqbalka soo socda madaxweyne Zelensky horey talaabo noocaas ah wadada wuxuu u xaaray isaga oo NATO ka codsaday wax aysan ka aqbali karin oo ah in ay hawada Ukraine ka dhigaan meel duulimaadida ka caagan kadibna wuxuu ku dhaliilay isbahaysiga in markaasi ay dhabarjabin ku sameeyeen wadankiisa markii dambana waxa uu si cad u sheegay inuusan hubin hadiiba NATO ay sidaan u dhaqmayso in ay u qalanto ku biiritaan xilli ay sii socdaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee xukuumadda ku dhisan arintu sida markaasi kama sii fiicnaanayso NATO ayaa eedaynta la saaraya iyadana way u sahlan tahay in ay dusha u ridato Ukraine dhankeedana waxa ay haysaa in markaasi ay xur u noqoto saameynta waxa ay rabto balse taasi waxa qaybta sahlan waxaana markaas adkaan doonta in Ukraine uu u hirgalo hamigooda ku aadan inay si degdeg ah ugu biiraan midowga Yurub taasoo Ruushka uu arko cadaawad la mid ah tan ka imaanaysa marka ay NATO ku biiraan inkastoo xal loo raadin karo arintaasi
hase yeeshee waxa ugu weyn ee Ukraine aysan laqi karin waa in Ruushka uu xusul duubayo in uu qaato dhulka Ukraine taasoo gabi ahaanba ka soo horjeeda sharciga caalamiga ah ee madax bannaanida oo Ruushku uu horay markaasi u saxiixay si uusan uga xadgudbin xuduudaha dalka Ukraine qabashadii Ruushka ee gobolka Crimea sanadkii 2014 waxa ay noqon kartaa mid khasab lagu ogoleysiiyo Ukraine marka dhinacyada qaar laga eego Ruushkuna waxa uu doonayaa in uusan ka tagin deegaano kale oo ku yaala bariga dalkaasi Ukraine kuwaasoo haddaba intooda badan uu maamulkooda gacanta ugu jiro Ruushka waxa kale oo laga yaabaa in uu rabo meelo kale oo dheeraad ah sanadkii 1939 Joseph Stalin ayaa weerar ku qaaday Villan oo mar ka tirsanaan jirtay boqortooyadii Ruushka waxa uu hubay in ciidamadiisu ay xayndaabka si sahlan ku soo gelin karaan Villan iyagoo aan waqti badan ku qaadanin isla sida uu Putin aaminsan yahay sanadkan 2022 generaaladii dawladii Stalin way ka cabsadeen in ay markaasi runta u sheegaan waxayna u ballan qaadeen in uu saxan yahay oo guul laga soo hooyin karo dagaalkaasi dabcanna wuu khaldanaa dagaalkaas oo socday ilaa 1940kii militariga Sofiyeedka waa lagu bahdilay dadkii reer Finland waxay heleen sharaf weyn oo ah in ay iska dhiciyeen wadan kamid ah kuwa adduunka ugu xoog badan dhul waa laga qabsaday taasoo ah dabeecadda markaasi ay ka simayeen Stalin iyo Putin maadaama ay guul raadinayaan balse Finland waxa ay heshay arintii ugu muhiimsaneed oo ah in ay noqoto dal madax bannaan oo go'aanadiisa gaari kara hadda sida ay arintu ku socoto maadaama reer Ukraine ay iska caabiyeen weeraro badan oo Ruushka uu ku hayo ciidamada Putin ay u muuqdaan kuwa aan waxba isku haynin waxa suuragal ah in ay sameeyaan sidii Finland haddii ay militariga Putin u suurtageli weyso inay qabsadaan magaalada Kiev iyo meelo badan oo ka mid ah Ukraine markaas Ukraine waxay badbaadinaysaa qarannimadeeda isla sidii ay sameysay Finland sanadkii 1940kii shacabka Ruushka qaarkood lama dhacsana dulmiga hogaamiyahooda iyo beenaha laga wado telefishinada dalkaasi balse ma awoodaan ka hadalka arintaasi waayo maamulka oo aad isugu saxan go'aanada duulaanka Ukraine shacabka dalka Ukraine oo iyaguna ah kuwa mar horeba u diyaar garoobay dagaalkan ayaan kaliya furimaha ku fasixin ciidamadooda oo xataa haweenka iyo dhalinyaradu hubkooda ay qaateen waxaana ka go'an in ay xureystaan dhulkooda iyo dadkoodaba sida Finland ay sameysay 1940kii markii hogaamiyay xilligaasi oo Ruushka uu ku duulay balse su'aasha ayaa ah waa sidee awoodda Ruushka ee dagaalkii Finland iyo hadda uu la dagaalamayo dalka Ukraine sidoo kale shacabka Ukraine ma la mid yihiin kuwii Finland ee muddada sanadka ah iska difaacaya mid kamid ah wadamada ugu awoodda badan adduunka ee oo ah Ruushka bilowgii dagaalkan awoodaha Ruushka iyo Ukraine markii la isbarbar dhigo cidna ma fileen in intaan ay soo gaari doonto Ukraine sababtoo ah tirada iyo xuduudda Ruushka balse wax walba ayaa isbedelay oo shacabkii ayaaba kacay